Ma ogtahay in farta Braille-ka oo ah far ay isticmaalaan dadka aragga naafada ka ah ay leedahay dhibco kor u soo kacsan oo taabashada lagu akhriyo, uuna hindisay nin lagu magacaabi jiray Louis Braille oo u dhashay waddanka Faransiiska. Kadib markii uu go'aansaday in uu noqdo qof wax akhriya waxna qora, ayuu hindisay fartaasi sanadii 1824. Louis Braille was born in France in 1809. He was blinded in an accident at the age of 3. Despite his disability, Braille was a brilliant student. He received a scholarship to the Royal Institute for Blind Youth. While at the institute, Braille began developing a new way for blind people to read and write. Braille's code, which is now known as Braille, is still used by blind people around the world. Ma ogtahay in ururka Jaamacadda Carabta la aasaasay 22 Maarso 1945, waxaana lagu aasaasay 7 dal oo ay ka mid ahaayeen Masar, Ciraaq, Jordan, Lubnaan, Sacuudi Carabiya, Syria iyo Yemen oo 5 May isla sanadkaas ku biirtay. Mise ogtahay in Soomaaliya ay ku biirtay 14 Febraayo 1974, waxaana xarun u ahayd ururka magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar. ولقد كان مفترضا أن يتم هذا الانضمام منذ وقت طويل تحقيقا لرغبات شعبنا الذي ظل ينادي بها. احتفاء بانضمامنا إلى الجامعة بالنيابة عن إخوانهم المندوبين وعن البلدان الشقيقة التي يمثلونها. شويش سيب انت الحبل بقى. شويش اوعى ارجع ورا بقى انت خالص. Ma ogtahay in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee noloshiisii oo dhan uu hal mar soo xajiyey. Ma ogtahay in magacyada qaaradaha adduunka ay ku wada dhammaadaan xarafka ay ka wada bilowdaan. Ma ogtahay in magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwara horey loogu aqoon jiray Yasrib.